Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalkeenna waxaan ku soo qaadan doonaa qiso la yaab leh oo dhacdo la yaab lah. Haddaba intaanan u gudagalin, haddaad channelka ku cusubtaa subscribe saar, haddii hore noola joogtayna dee like nagu dhiirigeli, gambaleedka fursada muuqaalada isla waqtiga aan soo dhigno aad ula socoteed daawadaha ugu horeeya daawada aad noqoteed. Waxa uu ahaa wiil 20 jir ah oo ku soo koray guri rafaad iyo kadeed ah. Hooyadii Iliyo baalkamo aanu qaadin. Kolkii ay isaga umushay ayay geeriyootay, wayna umul aroortay. Markaa waxaa soo korisay xaaska aabihii guursaday marka hooyadii dhimatay. Gabadh aad u arxan daran ayay ahayd. Waagu wuxuu ugu baryi jiray hiifitaan, dharkiisa oo la jeexjeexo, buugaagtiisa oo la gubo. Cadceedduna waxa ay ugu dhici jirtay isagoo nadiifinaya guriga, maydhaya. Waxaanuu ku seexan jiray jirdil, waxaanuu ku soo toosi jiray aflagaado. Muddo markuu intaa ku noolaa, wuxuu go'aan ku gaadhay maalin maalmaha ka mid ah wiilka yaraa inuu ka baxsado guriga. Tiina wuu suurka gashay. Waxbarashadiisa wuu ka hadhay, dugsiga sare uma gudbin. Maaha in aanu ahayn inuu ahaa damiin ama uu ahaa qof agnaan ah, ee dugsiga sare wuxuu uga gudbi waayey kadeedkaas iyo arxan darrada u geysatay gabadha aabihii uu qabo. Muddo markuu intaa ku noolaa aanu laamiyada Qaahire soo wareegi jiray. Ugu dambeyn waxa uu helay shaqo. Waa shaqooyinka sarsare ka mid ahayd. Mushaar ahaan uu qaadan jiray bishii 10 geni. Laga yaabaa inaad isweydiiso maxaa kaloo ka dhima hadduu 10 geni qaadanayo bishii. Shaqadaasi waxa ay ku koobneyd 6 bilood oo kaliya ah. Heshiiska 6 biloodna ah kolkuu dhammaado shaqada waa laga eryayaa. 6 bilood kadib heshiiskiisu uu dhammaaday. Isaga noloshiisii murug iyo kadeed badan ayaa soo saaray. Suuqyada ayuu iska wareegi jiray. Maalintiina wuxuu la cuntayn jiray wiil ay saaxiibiyiin gurigooda ayuu ka cuntayn jiray. Habeenada qaarkoodna wuxuu seexan jiray wiil ay saaxiibiyiin gurigooda. Marmarka qaarkoodna wuxuu seexan jiray wadooyinka tareenada lagu suda, fadhiyada tareenka lagu suda ee lagu fadhiista ayuu seexan jiray. Kolkaas siduu isagoo dhigo mid tareenka soo socda sugaya. Ugu dambeyntii wuxuu go'aansaday inuu Qaahire isaga tago. Bishii Noofembar, maalin Axad ayuu cagta furtay, waxaana uu qaaday waddo cagaaran oo lamadegaan ah. Waana socod ilaa uu daal la dhaqdhaqaaqi kari waayey. Kolkaas ayaa bartamaha waddada istaagay, isagoo gawaadhida waddada maraya u gacan haadinaya oo ka codsanaya in ay sii dhoweeyaan, balse gawaadhidii dhinacyada ayay ka marayeen iyaga oo aan xitaa ku fekerin xawaarahooda in ay gaabiyaan oo istaagaan. Dunida oo idil ayuu nacay. Kolkii wuxuu ku fekeray wiilkii yaraa inuu waddada bartamaheeda inuu gaadhi laba ka kala dhigo. Isagoo xaalkaa ku sidan ayaa cadceedduna sii dhacaysay. Ilbiriqsiyo kadib waxaa waddadii soo maray gaadhigaasoo kolkii uu ila simnay buu yidhi istaagay. Dabadeed waxaa ka soo degtay gaadhigii gabadh. Markii ay aragtay rafaadka iyo silaca ka muuqda ayay qaaday. Gurigeeda oo ku yaala magaalada Scandinavia ayay geysay. 3 maalmood ayaa sariirta saarnaa. Xumad ba'an ayaa haysay. Maalintii afraad ayuu xaalkiisa soo wacnaaday. Markaas marwadii cunto iyo cabitaan ayay siin jirtay. Muddo markuu caafimaad qabay uu halkaa ku noolaa, marwadii guriga deganeed ayaa ka codsatay arrin la yaab ku noqday oo lama filaan ku noqday. Arrinkaasna wuxuu ahaa inuu la galmooto. Kadib uu ka yeelay gabadhii sariirteeda ayuu abaalkeedii ku mariyey. Habeenkii xigay ayay 5 geni intay gacanta u saartay ayay u sheegtay inuu soo laabto habeen kasta oo Khamiista oo aan la hubiyo habeen kasta oo Jimcaha. Maalinta markii la huday siiso 5 geni. Dhowr toddobaad ayuu qaabka ku caanimaalayay, balse Khamiistii la soo dhaafay ayay diiday inay siiso lacagtii aan soo afgaranay.
balse hal mar unbay ugu tiri lacagta haddii aad doonaysid waa in aad i guursataa oo meherkayga u noqdaa 2,000 oo geni oo horumaris ah. 2,000 oo geni bal hadda suurayso waxa ay meher u doonaysaa 2,000 oo geni. waa ninkii yaraa ee Qaahire ka soo cararay ee darbiyada Qaahire seexan jiray. waa gabadh 50 jir ah oo weli haysata hanti xerada beeshay uu eebba siiyey eebba ku manaystay. waana gabadh hamaanada oo khaniisada dhibkaasaa haystay wiilkii yaraa. wuxuu isweydiiyey miyaad guursataa oo inta noloshaada ka hadhay waxaad u noqotaa dibi ay leedahay iyadu. ugu dambeyn wuxuu go-aan ku gaadhay inuu isaga tago gabadhaas oo isaga hayaamo. intaanu isaga tegin buu su-aalo dhowra isweydiiyey. wuxuu is yidhi haddaad guursatid oo horta waa gabadh 50 jira, waa gabadh khaniisnimo ku darsatay. marka wuxuu is intaanan guurkeeda ku fashilmin iminkaba faraha la gelin buu is yidhi. farahu ka qaaday isaga tegay. lacagtii yareedii wixii ay usoo bandhigaysayna intuu halkan isa dhigay ayuu isaga cararay. qisadaasuna waxay ka dhacday wadanka Masar, gaar ahaan caasimadda Qaahira. haddaad halkan ku cusub tahay nagu soo biir baan ku leeyahay subscribe saar. haddii hore noola joogtayna like bad saaraysa muuqaalku si dad badan u gaadho. waxaad ka faa'iiday qisadan comment-dan ugu reebaysaa. inta muuqaalka xida aan isugu imanno waxaan iga tegayaa bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qab inaan isugu soo noqono hadduu ilaahay ka dhigo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.